toddoba arrimood buu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa toddoba balaayo toddobada balaayo intaana idinku habsanin cumriga ka faa'iideysta buu leeyahay toddobadan arrimood hadday kugu dhacaan fursadii cumriga aad ka faa'iideysan lahayd way yaraanaysa ugu horeyn waxa uu ina barayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam illa inagu daba jiro layna wado waxba inaba daba taagan marka waxyaabaha ina daba taagan ee weerarka inagu ah ee waqtiga ina dhaafinaya inaynu iska ogaano aynu ka degdegno camalka uga dheerayno caqabadaha jira camalka caqabad kaaga ah oo ka duwaya marka inaynu ka waxa isaga la tartanno inuu ogaano waxyaabaha caqabadaha toddoba arrimood buu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa toddoba balaayo toddobada balaayo intaana idinku habsanin cumriga ka faa'iideysta buu leeyahay toddobadan arrimood hadday kugu dhacaan fursadii cumriga aad ka faa'iideysan lahayd way yaraanaysa maxay toddobadaas baadiru bil a'maali sab'an camalka intaan toddobadan arrimood idin helin badsadoo ku dadaala buu nabigu oo kay dhigta ka horeeya waxa weeye faqran munsiyan waa faqriku ilowsiya camalkii cibaadada dad miyaanad arag markaad tidhaahdo war maxaad u cibaadaysan weyday kooranaya caruurtii waxay cuni lahayn baanan hayno intaas baan u cararaya maxaan cibaadaystaa ibliiskiiba xagaa ka soo galay aw ghinan mudghiyan ka degdega buu leeyahay ka dadaala qaninimo iyo maalqabeennimo idin kibrisa maalku marbuu balaayo noqdaa markuu diinta ilaahay iyo aakhiraba ilowsiyo qofka maalka aad leedahay waa musiibo inuu ku dhaafaa ku roon marka waana yar tahay cidda iska xijisa kibirka maalka ee ku mahadnaqda ilaahay waxa ka degdegtaan intaanu camalka iyo cimriga idin dhaafinin maradan mufsidan cudur ku aafeeya oo cibaadada dhadhankeeda iyo macaankeeda ku dhaafiya waad aragtoo dee qofka xanuunsanaya ee taahaya ee xumadaysan ma cibaada u dhalamaysa waa kulloodii wixiisu iyo iska ridiyo isdhaafi cibaadadu daayaraanta iyo caafimaadka iyo xooggay macaan ku leeday waxa afraada haraman mufnida geeri gabow ku asaasaqiya oo kura ku tuquntuqiya oo aqligaagii iyo caafimaadkaagii xumeeya kaana ka degdega aw mawtan mujahiza ama geeri ku tabaabushaysa intaanay geeridu imanin nolosha ka faa'iidee aw iddajaal fa sharrun qaa'ibun yuntadar geeridiiyo gabowga waxa soo raaca gaal ku jaanjaamiya oo wuxuu la dagaalamaya inaynu ka faa'iidaysanno cumriga gaalna waxa ugu weyn dajaal cawar mar walbana dajaal cawar baa iska badan meelo badan kuu soo maraya oo camalkii iyo cibaadada kaala dagaalamaya oo waxaynu arkaynaa maanta la buufinayo balaayooyina waxa la inaga mashquulinayaa inaynu alla caabudno oo aynu addoommo dhab u noqonno wuxuu nabigu raaciyay aw saaca wa saacatu adha wa amar ama qiyaamada inta qiyaamadu imanin toddobada arrimood oo balaayooyin ku noqon kara qofka oo cimriga dhaafin kara inuu ka faa'iideysto ka dadaala buu nabigu ka degdega oo kuna baraaruga